munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka dhulka ayaa maanta waxay ka dhacday xirada Gordon ee magaalada Muqdisho. Munaasabadaas oo ah dhiirigelin iyo garab istaagid ay haweenka Soomaaliyeed garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana soo agaasimay xafladan ururka haweenka qaranka oo ay horkacisay gudoomiyaha haweenka qaranka Maama Batuulo Sheekh Axmed Gabale. wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha haweenka qaranka Maama Batuulo Sheekh Axmed Gabale. waxaan u mahadcelinayaa xaqiiqdii ururka haweenka iyadoo maalintii 8 Maarso u ahayd inay maalintii xuskooda ay ka soo hormariyaan ayagoo la wadaagayo farxadda iyo wacyigelinta isgarab istaaga ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waad mahadsantihiin maanta waana dhiirgeliseen waxaad muujiseen geesinimo wadaniyad iyo waxaad muujiseen isgarab istaag dhaba. maalintii hore waxaan aaminsaneen inuu dagaalku ku jiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga, laakiin maanta waa ka bedelan tahay. waxaad noo muujiseen in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ee ururka haweenka inay nagarab taagan yihiin dagaalka aan kula jirno nabaddiidka iyo kuwa runtii banaysta dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee runtii u diyaargaroobaya sidii nolosheena iyo sharafkeena karaamadeena ay u baabi'in lahaayeen oo aan ku tilmaami karo cadowga dibadda uga imaan kara dalkan iyo kan gudahaba inaad nala garab taagantihiin xilli hooba. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. waxaa kaloo xusid mudan in dhiirigelin ballaaran uu u bandhigay taliyaha dhulka Cabdixamiid Maxamuud Dirir ciidan tababar uga soconayay xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. maanta waa maalin farxad ah maadaama ay inala joogaan ururka haweenka Soomaaliyeed oo taageero runtii taariikhda gali doonta ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay dalka iyo dadka iyo diintaba ay u difaacayaan. runtii waa wax farxad ah. waxaan leenahay idinkuna guulaysta, annagana waxaan ugu ogtiin haddii Allah awood leh difaaca dalka iyo inaan idinkoo nabad ah iyo annagoo nabad ah oo dalka soo xoreynay xamar ku damaashaad oo haddii Allah awood leh xafladda dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa garab soconayay munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. ciidda taaban mar dambe ciidankaas ayaa mudan in lala dabaaldego ayay noo soo jeedisay agaasimaha guud. annagana haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed waa ajiibnay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaan waxay nooga soo direen hambalyo. waxay idinkugu hambalyeynayaan geesinimadiinna, dagaalyahanimadiinna iyo sida aad cadowga uga sifayseen dalka Soomaaliya. inta yar oo hartayna aad dhawaan ugu luqluqan doontaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. annaguna waxaan nahay garbihiinna, waxaan nahay hooyooyinkiin, waxaan u taaganahay habeen iyo maalin inaan idinku taageerno dagaalka xaqa ah oo aad dalka uga xoreynaysaan cadowga, inaan meel kasta iyo goob kasta oo aad joogtaan aan garabkiina istaagno. wax alla wixii taageero ah oo aad mudantihiinna aan idinla garab istaagno. inta carruuraha iyo xaasaska ka tagtay inaan ka warqabno xaasaska iyo carruurahooda. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa xabadda cadowgu idinma karto, tiinuna haddisho cadowga oo ha baabi'iso ilaahay idankiis. Maxamed Amiin Cabdirasaaq Aadam, Bulsho TV, magaalada Muqdisho. ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore. qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud. hoos u yara dhig dhiishkaaga xubinta suulka in le'eg kadib kubaadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wecwicin dhiishka. kubaadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. mahadsanidin.